السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا ليال ميل كستوت كلا جوكتنا دونك الدعالة ديسا الرولي عن النقبة وإيدي صوت السلامية وقتو هيدي وعنادو إلهي إنها إيدين حفظو سيدي عادة دينو هيدنا موقال عصب أيان إيدي لو داقيا مانتا موقال كان إيدين سيدو وحكو سابسين هاي إسكو إيكاشاها كوحدة أركك حسادة المماسانية إيو حار والوال أما دور شانك حيوان خلو يقانو muuqaalkan sida idin muuqda intaan codka idin sii dayn waa sheekh shaydaan muftiga u fasaxa u duceeya ee ka barakaystaan kooxda argagixisada almamaasaniya ee loo yaqaano Xuseen Cali ama Xuseen Jabuuti. waxa uu ka hadlayaa xayawaankaas isagoo si qosol ah oo dheela uga sheekeynaya dhibta uu wado xayawaankaasi xaar walwalka. laakiin wuxuu moogan yahay sheekhu inuu isagu iyo tolkiis uu ka hadlayo inta ay talada iyo hoggaanka dalka ay qabteen. waddanka Jabuuti waxa uu ku nool yahay saxaro, gudaafad, wadooyin jajaban, nolol liidata, uskag iyo qashin ayaa shacabka reer Jabuuti ay ku dhex nool yihiin. haddii aad eegtaan gaar ahaan laamaha dowladda ee halbowlaha u ah xukuumadda, darbiyada dibadda haddii aad eegtaan hortooda ama gadaashooda, waxaad arki doontaan in ay gudaafadi taalo, darxidu ay gashay oo qarmuun xayawaanku iyo ayaanka iyo xaar walwalku waa ku dhex nool yahay. reerkani almamaasaniya loo yaqaano waa reer la shaqaysta shayaadiintay moodaan inay awood iyo ummadda ay ka qaban karaan, iyagayna tala saartaan, iyagayna booqdaan, wayna ka ducaystaanoo wayna ka barakaystaan shayaadiinta. suubanaheennuna wuxuu noo sheegay shayaadiintu waxay ku nool yihiin meel kastoo qashinka iyo gidaafadu ay taalo. marka waad garan kartiin dad la shaqaysta shayaadiinta unbaa gudaafadayna ku dhex noolaadaan ama ummadda ku dhex nooleysiyaan jecel. intaa kadib waxaa kaloo ogaataan in uu shaydaanku wax kastuu maleego awood u lahayn, maadaama ilaahay uu noo sheegay. haddii ay noqoto sixir, haddii ay noqoto si kalaba, ilaahay wuxuu yidhi inna kayda shaytaana kaana daciifa. wax kastuu maleego shaydaanku, dhagar kastuu maleego iyo qorshe kastuu dhigo waa daciif, waa mid liidata. maxaa awood u yeelaya? waxaa awood u yeelaya dadkan aaminsan ee ka maxaan ku dhahdaa la shaqaysta ama u shaqeeya. kolkaa haddii aad isweydiin jirteen waa maxay reerkani u jecel yihiin uskaga, muxuu dalku san u yahay? dadkan iyo xaar walwaalku si midaataa loo wada sameeyey, meel midaataa laga soo wada qaaday abuuritaankooda. ilaahay baanu ka magan galnay shayaadiin iyo kooxdiisa.